أد هاي وراك سو آدي ما شاء الله وحبال السياحة وأنا ملاين يا تلو حال السياحة ولا لا ليري يري ما شاء الله وهيرا هيرا صح يا هاي هاي وصفولي ما شاء الله هاي هاي they are very friendly حيوان and look at this هاي أرجعنا عادي وايتن ويريرت ها هاي mid walbo way ku imaanaysaa marka u timaad hi come here yes what's your name I'm Abdi hello ها ما شاء الله ويتمد النوع كله هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا مركله جنال كعبدي جنال أنا كسر قد بنا وحيالها إسلامنا هي وحي أنفعيان أمد الصوماليات ما أنت وحين كسر السلام يا مال كدوان ماله عن إذا كسر السلام تري واحد حسوستها أنا قلت شوجا حريق ويا قارة أفريقيا أو أن كسر قد بيو نقشة حولها خاصة دوربرشيب كيدها ما أنت واحد شوجا عريق إنجليزك مقالة لندن قبل كهارتفورشير ديجان كأنفيل خاصة ويلتهام كروس تشاس هانت هل كان واحد نويمد إن أن كدياريو برنامج كسابسن نقشة حولها خاصة شيب فارمينج هل كان ومقالة لندن وعاصمة دلك إنجليزك هدان وحير صعده وحن تجيا لندن بريدج تاور بريدج نيشج بيج بن ويستمنستر meelaha ay dadku ku fakaraan in ay booqdaan noloshooda marka kamid ah laakiin qof baa wuxuu go'aansaday asagoo magaaladaas jooga inuu ku dhaqdo ido halkan waa xiradii sida aad u jeedaan waa xiradii waxaan isku dayay inaan idiin soo dhaweeyo aad u jeedaan viewga maanta waa maalin jimca waxaan go'aansaday inaan imaado maanta meeshaan sababtoo ah maanta oo kale ma jiraan dad badan oo booqanaya mararka kale waa very busy weeyaan dhulku saan u egyahay beerta waxaa la yidhaahdaa Belmont Farm kaliya ma ahan inay beer la sameeyay xoolo lagu dhaqo waxa la sameeyay in isheeg wax ku xeeran beerta waxa lagu soo galayaa lacag hadda aniga waa inta soo doonaa markaan tagay lacag baan galayaa lacag 8 pound ah baan bixinayaa lacag baan ku galayaa 8 pound markaan bixiyo waxa ii suurta galaysa inaan galo xirada oo aan daawado xayawaanka kala duwan oo ku xareysan halkan macnaha tusaalaha aan ka soo wato waxa waaye in markii aad business aan oo kala aad sameynayso aad ka sameyn karta lacag sidoo kale waxa ka yaala ii sheeg cafeteria baa ku yaala ciyaalka la keenaa waalidiintu ciyaalkay keenaan siday u arkaan ii sheeg xayawaanada kala duwan sidoo kale waxa lagu dhaqaa idihii oo laga faa'iideystaa waa kana reception kii way halkan waa markii ugu horeysay oo aan meeshan imaanayo marka aniga laftakayga waa ku cusubahay marka waa goobaynaa insha Allah ta'ala waxaan tagaynaa xirada waxaan tagaynaa idaha waxaan isku dayayaa inaan wareysto dadka meeshan maamula insha Allah ta'ala waxaan ka faa'iidi doonaa cilmi si aan u dhaqano xoolaheena sababtoo ah farming ku waa fieldiga ugu muhiimsan
ma garanaysaa agriculture-ka ama dhaqashada xoolaha ama beeraha bini'aadanku wuxuu ku tiirsan yahay waa beeraha weeyaan marka waa muhiim inaa xoolaha la dhaqdo dad badan oo Soomaaliyana hadda waxay u soo jeesanayaan inay dhaqdaan xoolaha marka waa tanaa beertii sidaan u egtahay halkan waa magaalada London can you imagine yeah waa outskirts of the city ma fahantay haddaad joogto magaalada London oo aad ii sheeg rabto inaad beertan soo booqato waxaa la yiraahdaa Belmont Farm baa la yiraahdaa ii sheeg waa kaasa xoolihii sida u jeedaan waa idihii oo halkan ku xaraysan meel walbo la tago waa maqlaysaan codkii hay igu celi mar kale waxaan weydiin doonaa idahani waxay yihiin iyo ma garanaysaa magacooda qaabka u dhalaan ma garanaysaa intii ay jiraan qaabka looga faa'iideysan karo waxyaalahaas oo dhan ayaan weydiin doonaa insha Allah taala dameeraa jooga maca waxaa jooga ii sheeg waxaa jooga fardo waxaa jooga ma garanaysaa xayawaano badan oo kala duwan waxaa jooga digaagii macnaha waa business model meeshaan waxaan idin keenay oo aan videogan aan kugu sii deynayaa waxa weeyaan inaad idea heshaan sababtoo ah idea ganacsi baa soo weydiisaan mar walba this is a business idea xoolihii looma dhaqanayo in ma garanaysaa hilib laga cuno ama caano laga cuno waxaa loo dhaqanayaa in as a museum camal oo kale sababtoo ah ilmuhu markay ku dhashaan oo kale magaalada ilmaha markay magaalada ku dhashaan waxay u baahan yihiin inay ma garanaysaa xoolihii iyo nature-kii ay arkaan marka waa la keenayaa carruurta baa la keenayaa way la ciyaarayaan carruurtuna way jecel yihiin pre-school entrance no public access baa ku qoran halkan so halkan ma geli karno beertu waa beer aad u weyn marka waxaan isku dayaa inaan ma garanaysaa aan helo meeshii aan ka geli lahaa waxaanu idama xayawaanka idiin muuqda hadda idama ahan magac bay leeyihiin Albans meel iyo xasaas ah waa xoolo waaweyn oo ma garanaysaa ilaahay qaabkaas u abuuray ma garanaysaa look at this waligaa ma aragta ya xoolahaasi Latin America laga helaa waa xoolo nooc kala ah oo ilaahay qaabkaas u abuuray ya gudahan galaya insha Allah taala وجهة حولها look at this حولها أرجع لبهيهين لكن ونوع كلا ويان كان كل يا مركب إن شاء الله تعالى عشان هوس ما نقول جيا سويته مرة وإن hi how are you good so I wanna see around and I don't know where to start and what to do. Do you have a ticket? I don't have a ticket because they told me you can buy the ticket inside. Yes, yeah. Is it just you today? It's only me. Yeah. Do you want to feed the animals when you go down? No, I want to just see the ships. Just the sheep? Just ships, and I wanna, if someone can explain to me, it will be good. You know, give me information about how you feed and stuff like that. There's no one on site right now that can help you with that. Yeah. But you're more than welcome to go down and look at the sheep. Yeah. That's about it. Because everyone that's working on the farm is busy, so they're not actually here right now. They're everywhere. They are where? They're just everywhere. Okay. Yeah. So, but I will find somebody to ask a question. I don't know if anyone will be downstairs. Yeah. Okay. Because they're very busy. Okay. So, because
other than the farm is quite big. Yeah. So they go to different areas. To different so areas. They might not be downstairs. Yeah. Okay. So if I want to talk to someone, should I book time or? You can 'Cause- definitely come in another. Because I tried and I spoke with someone and they told me just to come in. Yeah, so you can just come in. Yeah. But it's just because I know for a fact that they might not be downstairs. I understand. Okay. Right now. So I go to farm and see around. Yeah, you can go No down and no have a problem. look. I can do that. Yeah. And maybe if I'm lucky, I will meet See- someone. Yeah. talk to someone there. Yeah. Definitely. Thank you. Okay. So that's £8. Yeah. Yeah. For adults. Yes. Okay. What about children? Children is between 1 to 3 is £5. Oh, we don't take Amex. So. Oh, you don't. Okay. Between 4 I to hope 6 I hope I kids. have my other card. Here, yeah. So meesha markaad timaado oo tigidhkaaga aad goosato halkaasaad tigidh ka goosanaysaa magacana waxaa la yidhaahdaa Belmont Farm xaggaanaad tegaysaa marka hoos baa loo deganayaa hoos baan u deganaynaa kaasaa haddii aadan jaranjarta raaci karin wiish baa jira hoos loo raaco Okay. So meesha waa tana dhinaca aadana marka I think it's here kan biyuhu waa iska socdaan marka waa u xiraynaa saxaan baan samaynaynaa waa u xiraynaa iyo maba xirmayaan I try yeah. halkan waxaa ku jira shimbiro iyo alaab iyo waxyaalo kala duwan beertu waa weyn taasaa idiin sheegay so ideahan halkan ka helayno waxaa waaye inaad beertaada uga faa'iidaysan kartid waxyaalo kala duwan ma garat arrinkaa waa ka hadli doonaa waa arrin muhiim ah halkan waa baridaa intay la eg tahay fiiri kana waa faras waa sheekaysanayaan tana waa ri kale hi how are you waxay jecel yihiin in la taataabto ya sababtoo maalin walba waa la taataabtaa mogta dadkay entertain garayaan ya goat halkan goat baa ku qoran ma ogtahay baa la yidhi inay riyuhu yihiin kuwo ku fiican inay meelaha fuulaan waxaa la ogaaday baa layidhi inay riyuhu fuulaan waa taasoo islaamaysa maasha allah waxaa la arkay baa layidhi riyo fuulaya meel la yidhaahdo Gingino Dam in Italy Kashmira waxaa la yidhi riyo arigaani meelo dhifa adduunka baa laga helaa waa ari aad u ah hi waraab soo aadayaan ma sha Allah waxba la siiyaa waan u maleynayaa talo maxaa la siiyaa yeah say igu timid ma jeed I love you too waxa soo xasuusisay wadankaygii Soomaaliya yeah laakiin ridan geelay la eg tahay yeah ariga aniga xiriir dhow baan la leeyahay waxa la yiri sida bini'aadankii oo kale waaye much like humans goats can contract a non life threatening cold hargab baa ku dhacay waxaana la yiraahdaa groupka riyaha waxa la yiraahdaa groupka riyaha trip baa la yiraahdaa waxa laga wariyay baa la yiri nin Ethiopian ama sheeko Ethiopian ah baa jirta oo la yiraahdo baa la yiri kafeega waxa heshay ri sababtoo ah waxay cuntay baa miraha kadibna way seexan weyday baa sidaas loo helay baa kafeega waligay sheekada ma maqal so riba kafeega markii ugu horeysay cuntay way seexan weyday waxay noqotay very energetic bay noqotay kadibna sidaas lagu helay kafeega bal fiiri ridan intay la eg tahay it's very big and very friendly yeah very friendly
ما شاء الله هوران سي قد بيننا إن شاء الله تعالى هل كان إيديه بقى كتيرة إذا هان مقعودة واحد عن شاقي وحنا اللي راه الشاقي عن سكوبي بالي هذا وانا ولا لا ليري يري ما شاء الله وهيرا هيرا صح يا هاي انت سالو دغيا xerada saas loo sameeynaya waxaan rabaa inaad daawataan هاي هاي وصفولي ما شاء الله هاي هاي they are very friendly حيوان كان ما قرت marka beertii baan gudaha u galeynaa waxaan rabaa inaad structure ka aragtaan qaabka structure ka loo dhisay oo loo xareynayo soo halkaan ay soo galayaan laakiin banaan baa jira banaankana waa tageynaa hadii ilaahaymo more animals this way baa ku qoran qof baan helay qofkaasaan weydiinayaa inda adeegayga baan isticmaalayaa Hi how are you do you work here do you know the name of the sheep these are they different Yeah. what are their names what are they bred April, Betty, Tilly are the mums, and then the lambs are May, June. no not the names The what? the breed The breed. Yeah. We've got Herdwicks. So the Herdwicks. grey ones are Herdwick. the big ones Yeah. The Herdwicks one with black face is Yeah. the Suffolk, yeah and the one right at the back is a North Country Mule mix, okay like a mutt, like a dog. yeah Yeah. so how old are the big one 4. 4 what did they start giving birth Well, after a year. after a year how many did they give Depends. Depends. You can never truly tell. It's usually 2. it's usually 2 okay what's the price of one Price, we don't sell them. you don't sell them None of them. just for visitors to see Yeah. what about when they get old what do you do it They stay here. they die here Yeah. no use but seeing them We don't sell okay what about milk No. what about what do you call wool. yeah It gets sold to British wool. yeah so you use the wool for selling We give it to the British Wool, which is like the biggest wool company okay in London, like Yeah. in England even. yeah And it's about 5p a ton. Yeah, there's no money in it. there's no No money in it. 5V only Yeah, okay you just want to get rid of it yeah, there's okay no money in it. okay thank you very much thank you so idihii waa kuwaana idahan waxaa meesha lagu xareeyay un in ma garanaysaa la daawado ya in la daawado look at this they are very curious waaye markay ku yimaadaan way kugu soo ordayaan sababtoo ah display baa lagu sameeyaa maalin walba dadkay u yimaadaan marka magacyadooda waa eegi doonaa idinkana waa maqlayseen baan u malaynayaa laakiin waxay igu tiri 4 sano sanad markay jiraan bay dhalid bilaabaan sida ugu badanna waxay ka dhalaan ishak labay dhalaan laakiin ka badanna way dhali karaan ka yarna way dhali karaan waxa kaliya loo isticmaalo waxa weeyaan inkastoo gabadhu inay tahay aan u malaynaya dadka xilliga samarka shaqeeya gabar yar bay u eg tahay waa kana ariga idiin sheegay very rare waay oo hargabka ku dhici jiray soo ma jeed intay ridaan la eg tahay fiiri marka waxaan rabaa inaad aragtaan structure-ka qaabka structure-ka fiiri qaabka loo waxaynayo ma garatay horaan u sii gelaynaa
Hi. Arigeena caadiga waa tan waa yar yar. What breed? Yeah. Oh, not sure. You don't know. Sure about the breed. You are just here for Volunteer. volunteers. Yeah. Okay. Do you know anything about the goats and or you just come? You like animals, so you come. Yeah, we just like animals, Yeah. so we come. Yeah. Okay. Mm. Are you aspiring to becoming farmers? Maybe. Yeah. Yeah, we'll see. Yeah. You will see. Okay. Yeah. But you like animals. Yeah, That's love why it. you are here. Yeah. Yeah. Love it. Yeah. So a lot of people come here to see. Yeah. A lot Yeah. of big families coming Big over, families. Yeah. Just to look around. Yeah. Yeah. That's good. That's good. Maybe one day you will own the same. What do you think about the business idea? It's good. Thank you very much. Marka dhalinyarada la kulmay waxay meesha u yimaadeen waa volunteer way iska yimaadeen macnaha way caawinayaan lacag ma qaadanayaan ma garatay. Hi, how are you? La ishaada fiiri ishaada. Hi, how are you? Inshallah. It's beautiful. Marka waxa ku jira meesha xayawaano kale ku jira idaa ku jira xayawaano kale ku jira marka waxyaalahan ka soo wata waxa waaye in aad ma garanaysaa farm aad samaysanaysaa idihii qaab caadi aad u dhaqanaysaa kadibna dadka waxaad u fasaxaysaa inay soo galaan dhulka waxa kale oo keenaysaa alaabadan oo miiran waxaan waa digiiran I think digiiran iyo digaagadii isku meel ku jirta. Okay, I don't know what this is. Xayawaan nooc kala kana. Yeah. Weligin ma aragteen. Hey. My friend. Xeeradan hore u sii galaynaa. Xagan digaag baa ku jira. oo meel iska weynaatay fiiri 10 daqiiqo ayaan magaalada ka soo socday and I'm here. So xoolaha aad ka cararaysaan oo aad u qabtaan inaysan faa'iido lahayn iyo beeraha iska daaya waxa ku jira hi mid walba way ku imaanaysaa marka u timaad hi come here yes what's your name I'm Abdi hello ها ما شاء الله ويتمد النوع كله هاي ما شاء الله والله magacyadooda way noo sheegtay laakiin waa kari waay safek iyo waxba la yiraahdaa bale marka waa baari doonaa insha Allah taala waxay leeyihiin website kaasaan gali doonaa aan ku ogaan doonaa magacyada iyo waxyaalaha leh kuwani waa European waa ida European waxa fiicnaan lahayd inay science ku dhijiyaan meesha ya kuwan waa cararayaan kuwani they are not social ya kuwaasi they are not social marka ka waran haddii aad magaalada Muqdisho ama Kismaayo ama Ishaag Hargeysa ama Boorama ama Djibouti Addis Ababa Jigjiga wherever you are halka hansiirkii baa jooga ma garatay wherever you are haddii aad Ishaag ka furato meeshaan oo kala xayawaanka arigii aad ku dhaqato xayawaanka noocyadiisa kala dadwanaayo dhan aad soo geliso oo ma garanaysaa aad ka samayso lacag annaga waxaan u qabnaa ganacsiga inuu yahay waxa la yiraahdo in ma garanaysaa dukaan la furto
in gaari la gato waxyaalahaas ganacsigu intaas waa ka ballaaran way garanaysaa ganacsigu intaasi wuu ka ballaaran yahay ma garatay marka meeshaan kala soo hadlayo waa janaalka cabdi janal oo aad ka daawataan waxyaalahan isleenahay waxa afacayaan ummadda Soomaaliyeed dhinacaasan aadayna marka cows goats and sheep dhinacaasi jirta marka halkan waxaa jooga waxyaalo kale magacooda ma aqaano waa turki baan u malaynayaa olo waa dagaalamaysaa hi hi why you upset yeah hi hello sacmadoobe xayawaanka iyo waxaad isweydiin kartaa maxay qof lacag ugu bixinayaa inuu yimaado meel saana oo ma garanaysaa xayawaanka iyo nature-ka ii sheeg waxaa jira caafimaad baa laga helaa